koonfur galbeed duulaan qaaban la qaadi waa koonfur galbeed oo Ethiopian leeri oo iyo dhan bisheeyil ku wali dadka kale masal markay wadaan xalana ma madaxdii wadankaanahay maadimiya habeen heegamaanahay Soomaaliya israacdan doonayna markii wali faday saaxiibkay in la ila dhawaayo xilwaan nuur jilay aragteen inta badan idaacado ku aragteen lama wada noqdo hogaan lama wada sinne lama wada noqdo Ethiopia oo dhanba isku kaaminta tarabi madow abiyo soo dhawow wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed mudane Cabdullaahi Xaajasan Nuur oo weheliyayeen la taliyaha dagaalkii waa la soo afjaray qolo Mooryaan ah oo dhibaato ku haysay shacbiga reer koonfur galbeed ayaa maanta carrada laga safeeyay wax aad iyo aad looga xumaado yaa shalay dhacdadii saaka ka dhacday magaalada Baydhabo oo runtii ugu haddana kalantiye ka jaran waxaan uga waday dagaalan uga waday beelma wali go'aan ahni buu dawladda ku sugan waxaan leenahay dadka ka dambeeyo iimaanka idin ka baxay ilaahay baa ka fogaateen xumaan baad ka shaqo doqonnimo naloo maleeyo waa cabsadaan la yiraaho naloo goodiyo dholo tus la suubiyo waxaan mar kale warka idinku xaqiijinaynaa shirkan jaraa'id in maanta saacadan aan joogo gabi ahaanba la hub wasiir in hay yani wali la arko marka hub dawladeedu saas dartiye managada doonto mar kale warka idinku xaqiijinaynaa shirkan jaraa'id in maanta saacadan aan joogo gabi ahaanba ayaa waqre bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ilaahay meel raajin gargaar ila am fayla zaid mujaa isbaarada lagu dhigto tuuga gabaadku ah waxay noqotay qabiilna waa laga gudbay dadka deegaankan waa ku aragaytan hoolkii oo wasaaradda cadaaladda ka dhex jira hoolkii shirarka oo golaha wasiirada iyo